abwaan gaariye iyo aragtidiisii ahayd aan joojino habfakarka aasi ognimada. abwaan maxamed xaashi dhamac gaariye allahu naxariistee wuxuu ahaa gabayaa, maansayahan, faylasuuf iyo macallin. wuxuu kaloo ka mid ahaa guddigii qoraalka af soomaaliga ah. bulshada soomaaliyeed badankoodii waxay ku xasuustaan aragtidiisii uu ku naqdinayay dhaqanka soomaaliyeed ee aasi ogaanshaha ah, ama qofkoo libintiisa iyo guushiisa aan lagu sheegin intuu nool yahay, oo markuu dhinto uun qofka in badan waxqabadkiisa laga hadlo. si uu arrinkaa bulshada ugu ifiyo, abwaan gaariye wuxuu joornaalka ku qoray tix maanse ah oo dad badani akhriyeen ilaa madaxdii dowladda markaa jirtay ay gaarto. tixda maansada ah waxay ahayd: ha lagu ilmeeyee horta dhimo af ma ahee, eegoo la nooliyo ifkaan kaaga baahanahay, wax yaroo aqoonsi ah oo aan aad u buurnayn, oo weliba eegay igu sii amaaho ictiraafka buuxee, aakhiro markaan go'o iilka igu sugayiyo, ayaantaan xabaal galo oo hintaan mutaystiyo akaankayga laga jaro. maansada mugga leh dartii ayaa abwaan gaariye aroos qaran loogu qabtay aqalka madaxtooyada. abwaanka hadafkiisa ugu weynaa ma ahayn in aroos qaran loo dhigo, laakiin hadafkiisa ugu weynaa wuxuu ahaa inuu naqdiyo cudur caqliyeedka soomaaliyeed ee ah aasi ognimada, kuna dhiirigeliyo bulshada in qofka aadanaha ah ha ahaado ciidanka naftooda u huraaya dalka, shaqaalaha isbitaalada oo la tacaalaya dhaawaca, macallimiinta oo xaalad adag carruurteenna wax barayo, iyo kuwa safka hore ka jooga adeega bulshada oo badankoodii danyar ah. yacni in la qadariyo loona aqoonsado waxqabadkoodii. haddii aan awoodnana aan u samayna aroos qaran ayagoo boqolaalo ah, aqalka madaxtooyada loogu dhigo aroos qaran. runtii diinteennu waxay qabtaa inaan isu mahadcelinno, isbogaadino, qofkii wax galaana la abaalmariyo. nabigeena allahuma salli wasallim caleyh wuxuu yidhi: man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illaah. qofkaan oon aan dadka u mahadcelin, allana u mahadceliyo. ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi: wakhaliilun min cibaadihi shukuur. in yaroo addoommadeeda ka mid ah ayaa shukriya. shayddaanka ibliisna markuu ogaaday ahmiyadda oo mahadcelinta iyo isbogaadinta ay leedahay, ayaa wuxuu ku dhaartay ilaahay uu ku dhaartay: walaa tajidu aktharuhum shaakiriin. uu yidhi badankoodii ma noqon doonaan kuwa mahadceliya. marka waana meesha keliya uu shayddaanka ka burburiyo mujtamaca, ha ahaada siyaasadda, ha ahaada guurka, ha ahaada qaraabada. marka gunaanadka muuqaalkani wuxuu yahay inaan aqoonsano ama qadarino qofka aadanaha ah waxqabadkiisa inta uu nool yahay, ha ahaado macallinkaaga, ha ahaado lamaanahaaga ama xaaskaaga, carruurtaada, suugaanleyda, ciidanka, farsamayaqaankeena iyo kuwa u adeega bulshada. mar walba ogow, wixii la mahdiyaa mar labaad lagu ceshaa waxay u noqonaysaa dhiirigelin. waxay kaloo u horseedaysaa in dad badani ay ku dhiiradaan adeega bulshada. waa walaalkiin baazi busuri iyo barnaamijkii horumari ummadaada. baaraka allahu fiikum.